yahay wanaga macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho. daawadaha qiimaha badanow waxaad kusoo dhawaataa casharkii aad uga barateen janalka masrax official ee maadada chemistryga fasalka afraad ee dugsiga sare. ciwaanka ayaa maanta wuxuu noqon doonaa wax la yiraahdo preparation of alkanes. maadaama aan kasoo hadalnay wax la yiraahdo nomenclature of alkane, waxaan rabnaa inaan si fiican uga hadalno sida loo diyaariyo alkane. daawadaha qiimaha badanow waxaan rabnaa inaan diyaarino wax la yiraahdo preparation of alkane. alkane ayaa waxaan rabnaa inaan kasoo diyaarino wax la yiraahdo unsaturated hydrocarbon. haddii aad maqashay daawaday unsaturated hydrocarbon, waxaa kugu soo dhacaya wax la yiraahdo double bond oo unsaturated ah. sidoo kale waxaa kugu soo dhacaysa triple bond oo iyaduna tahay wax la yiraahdo unsaturated hydrocarbon. haddaba daawada labadoodu waxaa waaye unsaturated hydrocarbon, waxaana la rabaa in laga diyaariyo wax la yiraahdo alkane oo single bond ah. alkane oo single bond ah. tusaale ahaan oo kale haddii triple bond uu yahay haddii triple bond ay yihiin, waxaa la jebina dabarkaas markii la jebiyo waxaa soo hara laba dabar oo double bond ah. markii dabarkaas la jebiyo, dabarkan kale haddana la jebina double bondiga ah, waxaa soo hara wax la yiraahdo single bond. markuu single bond soo haro, waxaan si toos u haystaa wax la yiraahdo alkane. ayaan si fiican u diyaariyey. marka meeshan waxaa kaaga cad alkane waxaa laga soo diyaari karaa alkane asaga waa single bond, waxaa laga soo diyaari karaa unsaturated hydrocarbon oo ah mar triple bond iyo double bond labadaba waa laga soo diyaari karaa. lastina waxaa la rabaa in la yimaado wax la yiraahdo alkane. daawadaha qiimaha badan oo haddii casharka aad u xiistay daawashadiisa, fadlan subscribe to noo saar, sidoo kale kumbaleelka furo si aad casharada ula socoto. waxaan rabnaa alkanes. markaan alkanes can be prepared waxaa laga soo diyaariya by catalytic hydrogenation. waxaa lagu daraa wax la yiraahdo hydrogenation. aa lagu daraa markaad maqlaysid maxaa lagu daraa hydrogenation of unsaturated carbon. unsaturated carbonka ayaa waxaa lagu daraa oo unsaturated carbon double bond iyo triple bond labadaba waa leeyahay. in the presence of catalyst, waxaa reactionka catalyst u ah oo dadejinaya wax la yiraahdo nickel ama wax la yiraahdo platinum oo bt loo soo qaato. heerkulku markuu yahay 200 oo degree centigrade ilaa laga gaaro 300 oo degree centigrade. sheekadan waxaa lagu talagalay daawadaha qiimaha badan oo lab chemistry, balse annaga waxyaabaan isla bixbixi doonaa inaad si fiican ula socotana isku day. daawada markii inta CH2 ay tahay, meeshan waxaa laga rabaa inay noqoto CH keligeed ayaa laga rabaa inay tahay. CH2 gadaal ayaan ka dhigi doonaa. inta waxaa taala artan waxaa u taqaaneen alkyl group ayaa meesha taalo ara. marka reactionkii inta waxaa taala CH. tusaale ahaan oo kale kan CH3 u taagan yahay CH markii la dhaho double bond, meeshan CH2 aa laga rabay, gacanta ka maqan waxay ku haystaa double bond ku haystaa, intana CH3 aa laga rabay. CH2 gacanta ka maqan oo saddexaad hydrogen saddexaad ka maqan laba gacan. marka carbonkan laba hydrogen oo inta ku haysto iyo laba gacan oo inta ku maqan, afartiisa gacan waa saasi complete ku tahay. excellence. marka carbonkanna waxaa ku dhagan hal hydrogen inta uga dhagan oo hal gacan iyo gacantan geeska xigta iyo labadan gacan, afartiisa gacan waa u complete. marka waxaan rabnaa ustaado inaan meeshan ka saarno wax la yiraahdo, horta waxaan ognahay dabarkan qaybtaas xagee inuu yahay wax la yiraahdo meeshan sigma bond. maxaa yeelay wax la yiraahdo sigma bond waa midka falgalay oo hore u yeelay, maxaa waaye sigma bond. kana waxaa waaye waa pi bond. okay, ustaada marka waxaan sameynaynaa wax la yiraahdo si aan u diyaarino hydrogenation ku sameyn hydrogen ku dareynaa.
waa tana hydrogenka ku daran marka dabarkaana jebinaynaa bi bondiga halkaas dabaraan jebinaa sigma bond bala jebinaya bi bondigaana jebinaynaa markii bi bondigan aan jebino dabarku wuxuu noqon doonaa single markuu single noqonayo laba hydrogen inta taal hal hydrogen inta kumada intaa ku daraynaa marka waxay noqonaysaa CH3 ay noqonaa waa ujeedaa meeshan CH taal halka hydrogen soo hartana waxaan ku daraynaa xagaan ku daraynaa meeshana maxay noqon doontaa CH2 marka R horey meesha u taalay dabarkii jebinay dabarkii markii laba hydrogen meeshan CH hal hydrogen ku darsantay meeshan CH2 ahayd hal hydrogen ku darsantay hadda marka meesha waxaa ka cad in aan diyaarinay waxa la yiraahdo alkane tusaale haddaan meeshan waxaa yaala CH2 inta double bond CH2 waxaa lagu dalaa hydrogen tusaale dabarkan oo bi bondiga aan jebinaynaa dabarkan bi bondiga markaan jebino single ayaa soo bixi doona sigma bond ayaa meesha ku hari doona sigma bond ayaa ku hari doona hal marka hydrogenada lagu daray hal hydrogen inta ku dari doona hal hydrogen inta ku dari doona CH2 ahead maxay noqotay CH3 tana CH2 ahead maxay noqotay CH3 salaam meesha waxaa taala ethene ayaa taala markii hore maxaan u socda marka wax la yiraahdo ethene marka maxaan kasoo diyaariyay waa su'aal unsaturated oo double bond ah ethene ayaan waxaan kasoo diyaariyay waxaan hydrogen ku daray dabarkii markii aan jebiyay hal hydrogen inta ku daray hal hydrogen inta ku daray CH3 dabarkan muxuu noqday single bond waxaan diyaariyay waa maxay alkane oo ah ethene alkane ayaan diyaariyay waxaan diyaariyay alkane oo ah ethene ayaan diyaariyay alkane oo ah ethene waa kaas ah alkane oo ethene daawadaha qiimaha badan oo meeshan hadda waxaa yaala propone inta waxaa yaala double bond ayaa yaala meeshan waxaa yaala triple bond waxaa yaala dabar la yiraahdo triple bond ayaa la daawada meeshan triple bond ayaa yaala hydrogen lagu daray labadan dabar waa bi bond mid kamid ah la jebiyay kana waxa lagu sameeyay kana la jebiyay kana waxa lagu sameeyay waa la jebiyay markii la jebiyay waxaa dhici doonta meeshan laba hydrogen waxa lagu daray hydrogenation lagu sameeyay hal hydrogen inta ku darsami doonta hal hydrogen inta ku darsami doonta markii ku darsanto inta C kaliya ayaa taala maxay noqon doontaa CH oo double bond ah meeshan CH ahead hal hydrogen oo CH2 ay noqon doontaa waa tan markan waxay noqotay alkene propene noqotay marka ani meeshan u socdo waa alkane inaan si fiican u diyaariyo haddana waxaan dabarkan jebinaa waxaan jebiyay dabarkan ayaan jebiyay dabarkan markii aan jebiyay hydrogenation ku daray meeshan CH taalay hal hydrogen ku daraa intana waxaan ku daraa hal hydrogen CH2 taal inta waxay noqon doontaa CH2 ay noqon doontaa intana waxay noqon doontaa CH2 maxaan diyaariyay marka propane aan diyaariyay propane marka hadda meesha waxaa kaga cad dabarku markuu triple bond oo yahay in lagu daro hydrogenation okay in lagu sameeyo hydrogenation in hydrogen lagu daro la jebiyo dabarkaana jebiyay maxaa soo baxa isla double bondiga soo baxay markii double bond oo soo baxo haddana hydrogenation ku sameynaa maxaa ku sameynaa hydrogenation ku sameynaa maxaan jebinaa marka dabarkaana jebina maxaa soo baxa single soo baxa single markuu soo baxo ani maxaan diyaariyay marka waxaan diyaariyay alkane waxaan diyaariyay waxa la yiraahdo alkane waxaan diyaariyay alkane hadda alkane aan diyaariyay muxuu noqday propane maxaa ka soo diyaariyay marka unsaturated carbon triple bond double bond last waxaan keenay waxa la yiraahdo propane oo alkane ayaan keenay okay qodobkii labaad maraynaa from alkane or alkyl halide artan waxay u taagan tahay wax la yiraahdo alkyl group alkyl u taagan tahay extana ku soo haratay waxay u taagan tahay halogen group salaano kale halogenka marka laga hadlayo waa groupka cusbeelada group 7 waxa kamid ah wax la yiraahdo chlorine
chlorine ku jirta, bromine ku jirta, iodine ku jirta, astatine waxyaabahaas oo dhan ku jira. Marka hadda inta waxaan ka fahnay alkylku inay yihiin dadahaas one less hydrogen, waa alkene ay ka maqan tahay hal hydrogen ay ka maqan tahay ayaa waxaa la yirahdaa alkyl. marka meesha waxaan taala ustaado waxa la yiraahdaa reduction taal. reduction kan ustaado waxaa erga reduction horta means waxaa laga wadaa waa gain in wax la soo qaato, macnaha ma ahan means loss ma aha, waa gain. marka waxaa leenahay alkyl halide ka markaan ka hadlayno horta alkyl halide iska exception waxaan ka reebaynaa fluorine bas aan ka reebaynaa, except waxaa ka fiiriyay alkyl fluoride wax la yiraahdo. reduce to waxaa loo yareynaa to alkanes ayaa laga dhigaa sheekada. waxa loo socdo waa maxay? alkane in la diyaariyo. in the presence waxaa meesha ku jira of zinc dilute waxa la yiraahdaa zinc ayaa ku jira. zinc iyadu waxa waaye marka loo fiiriyo waa catalyst. zinc waa maxay? waa catalyst. zinc waa maxay? catalyst. zinc iyadu waa maxay? catalyst falgalkay fududeynaa ama ay dadajinay. inta waxaa taala waxa la yiraahdo methyl chloride. waxaa taala methyl chloride. inta waxaa taala waxa la yiraahdaa methyl chloride. methyl chloride iyadu waa alkyl halide. iyadu waa maxay? waa alkyl halide. marka loo fiiriyo methyl waa maxay? waa alkyl halide. waxaan ku daraynaa hydrogen aan ku daraynaa, waxaan ku sameynaynaa hydrogenation. markii hydrogen aan ku darno waxaa dhici doonta markii hal hydrogen lagu daro macna laba hydrogen lagu daro, hal hydrogen oo kamid ah waxay ku darsami doontaa CH3 waxay noqon doontaa CH4 waxay noqotay methane. waxaan aan rabay alkane aan rabay inaan diyaariso methane ayaa meesha ka soo baxa. waxaa kale oo ku soo haray Cl tan iyo halka hydrogen inta kaashana waa isku darsan maxay noqon doonaa wax la yiraahdo hydrochloric acid. marka laakiin ani meesha aan socdo waxa waa inaan diyaariyo wax la yiraahdo inaan diyaariyo methane oo alkane inaan diyaariyo. marka waxaan rajeynayaa inaan meeshaan si fiican u fahanteen. waxaan sidoo kale reactionka catalyst uga dhigay zinc. okay salaam meesha waxaa tahay CH3 H7 chlorine oo ah propyl chloride oo ah alkyl halide yaala. waxaan ku daray hydrogen. marka waxaan sameyn doonaa halka hal hydrogen oo kamid ah hydrogen tan ku daray waxay noqon doontaa CH3 CH8 hydrogen todobada waxay noqon doonaa 8 oo propane alkane caadi noqon doonaan. chlorine tana iyo halka hydrogen isku dhigi doona hydrochloric acid ayaa meesha ka sameysanta. laakiin aniga meesha aan u socdaa waxay tahay inaan diyaariyo alkane. alkane waa diyaariyay oo propane ayaa ka soo saaray. qodobka igu xiga oo meeshan yaala ustaad meeshan si fiican iska fiiri from halo alkane or alkyl halide waa b isagoo ah ayaan taaganahay. tusaalahaan kala qaacido ah isticmaalaynaa r x plus 2 sodium plus PR oo meeshan PR ta x u taagan x ayaa u taagan 2 sodium plus x meeshan waxaa ku jirta wax la yiraahdo r waxaa ku jirta r waxay noqon doontaa marka labadan r israacayaan r oo laba r haye plus 2 sodium x marka waxaa leenahay ustaado reactionkan waxaa loo yaqaanaa waxa la yiraahdaa Watts coaction. reactionkan waxaa loo yaqaanaa Watts coaction loo yaqaanaa. marka waxaa leenahay in this process hanankan halo alkane react wuxuu la falgalaa waxa la yiraahdaa metallic sodium. waxa uu la falgalaa waxay tahay waxa la yiraahdaa metallic sodium. waxa la yiraahdaa etherna waxay noo tahay waxa la yiraahdaa ether waxay noo tahay catalyst. salaam halo alkane marka uu la falgalo metallic oo sodium ah etherkuna uu noo yahay catalyst waxaa sameysmaya waxa la yiraahdo symmetrical alkanes waxa la yiraahdo symmetrical alkane. salaam kale CH3 Br tan waxa u taagan x plus 2 sodium plus Pr plus minus x. okay inta reaction kan markii uu dhaco halo alkane ayaa wuxuu la falgala wax la yiraahdo metallic
sodium metallic sodium marka intaan isxigsinaya reactionka waxay noqon doontaa wax la yiraahdo CH3 waa israaceen intaan marka waxay noqon doontaa ethane plus lagu daray 2 sodium la soo qaadanaa Br tan hal xabo ka soo qaado 2 sodium Br salaada inta bromine atal inta bromine atal sala inta 2 atal soma labadan waxay ka dhigantaa laba bromine meesha waxay taala reactantiga soo labada hal xabo ka soo qaado maadaama 2gan ay ka wada dhaxayn karto okay intan hadda waxaan u maleyn inaan faantay waxa la soo saaran hadda waxa meesha soo saartay ethane waa alkane waxaan ku diyaarisay process-ka la yiraahdo Watts reaction hanaanka la yiraahdo Watts reaction ayaa ku diras marka qaacidadan hadda meesha ku qoran waxa la dhahaa Watts formula la yiraahdaa waana la isticmaalaa inta boqolkiiba boqol xarun inaan ka hadalno reaction-ka la yiraahdo decarboxylation reaction-ka la yiraahdo decarboxylation waxaa leenahay sodium salt cusba ah carboxylic acid on heating ayaa la kululeeyay with soda lima ayaa la yiraahdo waxa la yiraahdo calcium hydroxide marka waxaan leenahay calcium oxide waa catalyst calcium oxide waa maxay waa catalyst falgalka dadajinay waa maxay catalyst awa marka waxaan dhihi doonaa to form waxa sameysmi doona wax la yiraahdo alkane ayaa sameysma containing ayadoo ay meesha ku jiraan 1 carbon atom less than ayoo ka yarda salt cusbada soo waxaan dhihi doonaa intaan ay isku tagayda CH3 iyo hydrogen-tan waxay noqon doontaa wax la yiraahdo CH4 oo methane oo alkane ah laga diyaarinayo salahan oo kale sodium carbonate meesha ka soo bixi doonta meeshan oxygen-ta koowaad iyo oxygen-ta labaad iyo oxygen-ta saddexaad aan leenahay waa saddex oxygen soma marka waxaan leenahay saddex oxygen carbon-kan soo raacsiin marka waxay noqon doontaa carbon iyo saddex oxygen marka waxaan leenahay carbonate waa -2 carbonate waa maxay -2 plus sodium sodium tan hal xabo kamid ka soo qaado waxa tirahdaa plus sodium waxay ku falgashaa horta plus 1 ku falgashaa reaction kan hadii valency-ga isku mid waay sodium ka wuxuu ku dhigi doonaa inta ku dhigi doonaa reaction waxa ka dhali doona marka sodium ayaa wax ku dhigi doontaa wax la yiraahdo 2 waxa ku dhigi doonaa sodium ku dhigi doonaa 2 waxa ku dhigi doonaa sodium meesha waxa ka soo bax marka carbonate ayaa ka soo baxa so marka process-kan meesha uu ka yimid waa kana qaybtan waxay ka timid waa taas waa sodium carbonate marka anigu meesha aan u socdo waxa waa inaan diyaariyo alkane oo ah methane meesha waxaa jirta to form ila sameeyay alkane la sameeyay waa maxmar to form alkane la sameeyay alkane la sameeyay waa methane contain waxa ku jira 1 carbon atom hal carbon atom meeshan yaal sax less than kaasoo ka yar the salt cusbada marka loo fiiriyo 1 carbon atom ayaa yaala less than wuxuu ka yaryahay the salt cusbada okay process-kan waxa la yiraahdaa decarboxylation waxa la dhahaa decarboxylation waxa rabaa waxa la yiraahdo uses of alkanes inaan si fiican uga hadalno alkane-ka waxa loo isticmaalaa as a fuel shidaal ahaan loo isticmaalaa sababtu waa maxay alkane wuxuu soo saaraa they produce waxay soo saaraan large amount cadad fara badan oo heat ee kuleyl ah ay soo saaraan cadad fara badan oo kuleyl ay soo saaraan in combustion marka xagga gubashada laga fiiriyo waxa leenahay liquid alkaneska alkanada dareerayaasha ah waxa loo isticmaalaa sidii dareere camal loo isticmaalaa as solvent ayaa loo isticmaalaa waxa leenahay higher alkanada kuwa waaweyn tusaale ahaan kale kaarboonka 17 ilaa kaarboonka 20aad waxa leenahay are viscous liquid waa dareerayaal adag and used as waxa loo isticmaalaa waxa la yiraahdo as lubricantsku waa waxyaabo inta badan iska sabiibixa sida saabuumihii iyo waxyaabaha soo galaya lubrication ayaa soo galaya waxa leenahay solid liquids macnaha waxa ka wada solid alkane wax la yiraahdo jira solid alkane sida kaarboonka 21aad ilaa kaarboonka 30aad atom are constituency waxay ka kooban yihiin of paraffin wax wax la yiraahdo kooban yihiin usually waxa loo isticmaalaa in making laga sameeyo candles shucayda or base cosmetics waxyaabaha la isku qurxiyo ayaa laga sameeyaa waxyaabaha la isku qurxiyo kaarboonka 21 ilaa kaarboonka 30aad atom waxyaabo inta badan paraffin wax oo laga sameeyo candles ka waxaas carbon black wax la yiraahdo jira obtained carbon black waxa lagu helaa in covalent combustion uu imaado marka gubasho aan dhameystirnayn of alkane waxaana loo isticmaalaa in the manufacture in lagu sameeyo wax la yiraahdo of printing ink qada daabacaada soo aragtay meelaha warqadaha loo koobisto ardayinka jaamacadaha si fiican ay u koobistaan oo kale waxa la yiraahdo qada warqada ay qaadanayaan madooba ka muuqda
baasha mishiinka marka wuxuu leeyahay waxa la yiraahdaa print ink waxa la yiraahdaa qad uu leeyahay qadaas waa aragtay meel gadaal laga soo baxshaa qadaas maxaa laga sameeyaa marka carbon black ayaa laga soo sameeyaa okay waxaa kaloo jira midabada madowga oo dhan carbon black oo dhan marka la fiiriyo carbon black midabada madowga oo dhan waxa laga sameeyaa wax la yiraahdo carbon black sola shoe polish waxa la yiraahdaa jira ba lujitan kabaha lagu casayo maxaa laga sameeyaa lujitan kabaha lagu casayo si fiican u taqaanid waxyaabaha laga sameeyo waa carbon black marka alkeenku isticmaalkiisu boqolkiiba boqol waa muhiim fadlan daawada haddii aad u xiistay casharada aan inta badan soo dhignay channelka Masrax Official dhammaan asxaabtaada gaarsii ardada guriga kula joogta kuwa dariska kula ah kuwa gobolada jira kuwa aad garanaysid isleedahay sanadkan form 4 ay noqdeen bal ha ka faa'iideystaan casharada uses of alkenis daawade subscribe-ta inaad noo saarto isku day kumbaleelkana furo si casharada ku xiga ay kugu soo dhacaan